modelinka horta badana hooyaday waxay dhigi jirtay photogenic tahay in sawirkaad ku fiican tahay ha ay dhigi jirtay then Instagram aan sawiradeeda wax soo dhigay and then dad badan ay la soo xariireen oo rabaan in wax loo model gareeyo and then passion ay noqotay magacayga waa Cadar Yuusuf wuxuu u dhigmaa waxaa tartamayso 54 wadan oo Afrika tartamayso sababta aan u doortay inaan Soomaali matalo waxa waaye Soomaalideena badanaa ma qabno waxaan la dhahay beauty pageant ma qabno mideeda kale Soomaali dadka badanaa waxay ka aaminsan yihiin dagaal positive dhan ma lahan so 54 wadan isku imaanayso marka waxaan rabnay inaan positivity aan u gudbino kulligooda sawirka qaldan ay ka aaminsan yihiin in Soomaaliya in gabdho ay ka soo bixi karaan ay tartami karaan beauty pageants-ka waxaan sameeyaa Nigeria ka dhacaya wuxuu dhacayaa 1 November aadina last week aan camp ku jirayna then ka bacdi 15 November u dhacaya modelinka horta badana hooyaday waxay dhigi jirtay photogenic tahay in sawirkaad ku fiican tahay ha ay dhigi jirtay then Instagram aan sawiradeeda wax soo dhigay and then dad badan ay la soo xariireen oo rabaan in wax loo model gareeyo and then passion ay noqotay hadda badan waxaan sameeyaa brandska caanka ah aan badana hadii ay yihiin inay cambuuro soo bixiyaan hadii ay yihiin adii wax walba fashion ka mid ah hadii soo bixiyaan cabaayadaha anything waxaas camal then ana asturan oo xijaabkayga wata aan wax walba sameeyaa wallahi horta Soomaalideena zaaid bay supportive u yihiin badankooda not waxa laga yaabaa adii 0.01% in negativity kula imaadaan laakiin adiga mar walba waxa laga rabaa inaad fiirsan 99% ka oo sida fiican kugula hadlayso marka ma fi disguise gareynayaan wax badan ay ugu dhiirigelinaysaa in hadda iyo wixii ka bilowdo gabdhaha Soomaalida ee beauty pageants ka qayb gali karaan iyo xijaabkooda wataan maxaa la models noqon karaan wax walba passions kooda inuu yahay inay noqon karaan wax ka istaagin kareen wallahi horta qof rajixun ma lahan waan wada rajo fiican nahay insha Allah gool rajinayna ilaahay